waxaa tahay aqoonyahan Soomaaliyeed ku nool qurbaha dalka dowladda cusub ayaa ka dhalatay maxaad ka rajaynaysaa dowladda cusub والله خيرا كرجالنا ان صدق بكر دولة كلي ودولة كلي انت the last 26-7 years and دولة كلي ورجعلي مركا ما دام تاس اي جستو ان dadkii marka hob rajowna badan ayaa jirto oo dadkii ka filayaan dowladdan waa dowlad iska cusub ma aqaan inay waxyaalaha bormiskana inay gaaraan laakiin haddii at least shubi ay sheegtay 2 or 3 steps hadday hore u dhaqaaqi karaan kaasaa muhiima waxaa daran sidii hore si xun inay u celiyaan stateka ku jira waddanka Soomaaliya tan labaad ay ku dadaalaan rightskii dadka wadaniga ahaa kii ciidanka ahaa in si xaqa wax loo siiyo kii macalinka ahaa si xaqa in wax loo siiyo so at least qofkii inuu dareemo qof wadani uu yahay oo dadkiisu wuxuu qabanayo inuusan lacag ku qaadanayn keliya oo waddankiisu uu difaacanayo kii wax barayay in uu dareemo carruurtiisa oo kale ama walaalihiisa oo kale inuu wax barayo marka qofka markii lacag wanaagsan la siiyo qofkii waddankiisa waxba uu qabanayo lana baabi'iyo sida macallimiin kale meel laga keeni lahaa iyo building in meesha laga taagto iyo hada shaqaalaha keliya waa dad anaga aan keensanay shaqaalada marka laga keeno sida European Union basically ay ku sameeyaan marka waxyaabahaas oo kale inuu la dagaalamo corruption in la dagaalamo waqtiga qaadan dadka corruption ku jira waa dad ka xoogan marka waqti badan ay qaadan doontaa waa fahmaynaa marka as long as steps uu qaadanayo dowladdan cusub madaxweynaha cusub iyo dowladda cusub steps ay sameynayaan oo waddanka improvement ay ku sameynayaan it's a progress hadduu isaga ka gaaro inuu wax qabto waa muhiim haddii kale at least stage hadduu u sabgalayo kan ka dambeeya way fududaanaysaa wixii inuu sii wado marka khayran ka rajaynayna